kusoo qaadanaynaa geedka ku yaala waddanka Australia ee caleentiisu isu beddesho dahabka saafiga. koox baarayaal oo u dhashay dalka Australia ayaa daaha qaaday geed magaciisa lagu sheegay Oconatus, kaasoo ah dhirta ka baxda meelaha biyo fadhiisinka, waana geedka dhalaa caleema dahaba. baarayaashu waxay ogaadeen in camuudda uu geedkaasi ka baxa ay tahay mid uu ku jiro dahabka saafiga ah, iyadoo deegaanka ay dhirtaasi ka baxdana ay ku taallo xarun weyn oo laga qodo dahabku. baaritaano iyo tijaabooyin la mariyay caleenta geedkaasi waxaa lagu ogaaday in uu ku jiro xaddi badan oo dahaba, waana geed joog sare u baxa oo ay dhererkiisu gaari karo 10 mitir. waana geed si weyn u qaatay biyaha, iyadoo caleenta uu daadinayaana ay dhammaanteed leedahay midabka dahabka. hore waxaa lagu haystay in dahabku ka mid yahay maadooyinka sunta ee qallajin kara geedaha, laakiin xilligan baaritaanadu waxay xaqiijiyeen in aragtidaa wax ka bedelan yihiin, iyadoo geedkani uu dahabka dhulka ku jira ku qaadanayo xididada iyo jirida, kadibna u gudbinayo dhanka sare ilaa uu iskaga saaro caleen ahaan, iyadoo aan dahabka wax isbedelay ku dhicin. waana mid ka mid ah awoodaha Ilaahay ee ay tahay inay addoomihiisuna